shirkadda waxay isku tagay 10 shirkadood oo midna ay tahay Gabiley 9 ay yihiin Hargeysa oo ah shirkadihii hore ee leerka u shidi jiray magaalada Hargeysa. maxaa markaa qabataan bal warintay leeg basiisan magaalada nal magaalada Hargeysa waxaan ku qadaray inaanu siino ugu yaraan 40% ay shirkadda Aleel hadda ay siiso oo u badan galbeedka bariga iyo waqooyiga magaalada dhexdeeda oo suuqa ah. maxaa dadka markaasi ma ka jabiseen wax isu tagiinay wax ma u keenay faa'iido dadku aad bay uga cawdaan in qiimaha korontadu aad iyo aad u qaali yahay marka la eego beer unitki horta runtii inkasta oo wali aanan meesha aanu doonayna aanan gaadhin haddana marka la eego ka hor isku tagga iyo maanta way kala duwan yihiin oo runtii meelo badan baanu ka jabinay gaar ahaan qaybta businessyada ama baayac mushtarka oo shirkadaha aad u waaweyn ee korontada badan isticmaala aanu aad uga jabinay runtii iminka qaarkood aanu 50 sentiba ku siino ama 60 senti ku siino haddii la yiraahdo waxaanu rajaynaynaa runtii marka aanu qalabka iyo sida aanu wax u dhalino aanu bedelo oo aanu keeno waxyaabaha casriga sida cadeeda ama dabaysha in runtii macmiilka caadiga customerka caadigaana uu soo gaaro jibitaankaas uu soo gaari doono. laakiin markaad eegto raqiis waxa loo baahay dadka danyarta ah dadka imanka halkan aynu ku qabano cooshadaha iyo sandaqadaha iyo hal qol intay kreystaan dadna hal laambado kali ay u baxayso ayay tahay in laga jabiyay laakiin kuwa kale lacagta helayaan kuwa businesska waaweyn ama ganacsiga waaweyn haysta taa ka waran maad ku bilowdaan horta runtii sida Axmed og tahay waxa weeyaan businessyada waaweyn ma ganacsigan waaweyn waxa ku baxaya leer aad u fara badan baa ku baxaya haddii qofka kiradii guriga uu ku bixinayo ama meherada kharashka ku baxaya leerkiis la kaadaan waxa kala fiican meheradii baa xidhanto shaqaale badan ay shaqo beelaan baaxmisharkii baabo marka runtii waxyaabaha aanu ka caawinayna waxa weeyaan si shaqadu u socoto inaanu noqonin korontadii waxa ugu weyn ugu qaalisan qofkii bixinayo sida aad sheegayso dadka danta yarta ee baahan waa runtii aad bay iyaguna ugu baahan yihiin qaar baanu runtii hoos baanu uga dhignay qaarkood halkaynu ka qaadi jirnay 15 flat rate qaar baanu ka dhignay 10 ka dhignay waana maxay macni $10 oo kala bishii laambadii miya meena wuxuu markaa laambada ka badan baad isticmaalaan haday markaa runtii waan u soo soconaa laakiin saad ogtahay maadaama aanan wali bedelin wixii aanu ka dhelinay leerka oo aan naaftadiya wax walba runtii maalin kuma dhamayn karno waxaanu kor u qaadnay tayada leerka oo 24 saacadood ka dhignay waxaanu kor u qaadnay leerka u imanayay oo markii hore tayadiisu aanu wanaagsanayn oo markaa wax ka gubi jiray ama mashiin ka gubi jiray ama TV ka gubi jiray oo aanu runtii aad uga shaqeynay nabadgelyada leerka laftiisa aad baan uga shaqeynay oo runtii aanu aad ugu dadaalay inaan nabadgelyada leerkana aan wax badan ka qabanno marka xaggii nabadgelyada xaggii tayada xagga kharashkana waan u soo soconaa ama price ama sicirkana waan u soo soconaa saamiyada shirkadiinan Almis Electric markaad eegto ma la soo gali karaa dadku ku soo biiri karaa mise way xirantahay inuu intiinan 10 shirkadood horeba u jira isku biiray bay u xirantahay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay noqoto shirkad ummadda u furan laakiin maadaama aanu imika isku tagnay oo muddo sanad ka yar aanu jirnay horta xisaab xidhkii iyo wax isgoyntii iyo isku hagaajintii baanu wadnaa laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa bari ka maalin noqoto shirkad u furan ummadda markaad eegto magaalada Hargeysa waxa laga cawdaa oo dadweynuhu meel walba xarkii dabka ayaa magaaladii marayo oo in xagga sare ee bir ay ka taagtaagan yihiin oo laga yaabo marka qaarkood marka roobka kale inay khatar galiyaan oo dad ay ku dhintaan ma ka qabanaysan taa wax sidaan ku sheegay waxyaabahan culayska saarayna waxa kamid ah tayada leerka ama xarkahaas oo kale waxaanu ku dadaalanaa inaanu mishiino yaryar ee faraha badan ee xaafadaha dhex yaala aanu bakhtiino aanu 2 meelood ama 3 meelood oo waaweyn oo magaalada ka baxsanba aanu dabka ka soo dhalino waxa guuxay oo dhan ay runtii ay joogsadaan oo xaafadiina ay ka nastaan shicibkiina ka nasto nabadgelyadii magaaladuna ay ku jirto xaga kale xarkaha waxaanu ku talagalay inaanu xarka waaweyn oo kuwii ma garanaysaa ay dawladda Soomaaliya bariga ay jirtay oo kale mataqaana ay ka sameysnaa sibirka oo kale inaan aad u badino taasoo yaraan si khatarta ay birtu leedahay waad garan kartaa marka 5 shirkadood meel wada joogaan ee 5 xarig jiidaan shan layma meeshii laakiin marka shirkad kale noqoto afartii kala laga maarmaya oo xarkiina saas waa ku yaraanaya maxaad ka qaadan dadka imaka masalan unitki maxaad magaalada Hargeysa meelaha gaadhaan maxaad ka qaadan sidaan ku sheegayo waxaanu ka qaadnaa laga bilaabo 50 senti oo ah meelaha waaweyn ee meelaha waaweyn ilaa iyo $1 waanu qaadnaa dadka kale caadigaana dadka caadiga waxaanu ka qaadnaa $1 90 senti 80 senti inta waanu qaadnaa maxamed sheekh faarax cumar ayuu ahaa oo madax ka ah shirkadda Almis Electricity Company ee magaalada Hargeysa oo u waramayay wariyaha BBC-da Axmed Saciid Cige dadka qodobkaas ra'yigooda ka soo dhiibtay Facebook nagula soo xiriiray waxa kamid ah Zakariya Cabdullaahi oo Boorama jooga oo leh waa wax wanaagsan midowga shirkadaha korontada wax badan ayayna ka qabanayaan isdhaxyaacuna ma wanaagsan ayuu yiri laakiin Kayse Axmed oo Ethiopia jooga waxa uu leeyahay shirkadaha leyrka ee Hargeysa ee midoobay waxay u heshiiyeen dadka masaakiinta oo ay boobayaan cid ka daaya tiraahna ma jirto